kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada galka wararka qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxa uu dooroon dowladda Soomaaliya oo bishaan saxiixaysay heshiiskii saddex geesoodka Ethiopia iyo Eretria sanad ciidan oo laga xaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo saraakiil loo xiray shabaab hore oo dowladda federaalka Soomaaliya ka howlgelisay magaalada Muqdisho natiijo yaab la keenay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho lacag cusub oo yaab leh lagu soo rogay go'aan ka soo baxay shir amniga caasimada looga hadlay oo Muqdisho ka dhacay qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya balse aan ku bilaabo dowladda Soomaaliya wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in toddobaadkan soo socdo ay u kicitimaan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyagoona ka qayb gali doona shir ballaaran oo ay dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eretria ay ku kala saxiixin doonaan dhamaystirka asaaska heshiiskii isdhexgalka dhaqaale iyo midka bulshadeed kaas oo lagu wado inuu horseed u noqon doono in la isku furo xuduudaha saddexda dal isla markaana loo furo suuqa dhaqaalaha iyo ganacsiga ee saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eretria waxaa sidoo kale qayb ka ah heshiiska in muwaadiniinta saddexda dal ay si xor ah isku ganacsan karaan oo shaqaysan karaan isla markaana ay ku noolaan karaan saddexda dal waxaa heshiiska dowladda Soomaaliya u saxiixi doona wafdi uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan wasiirka ganacsiga injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye dhaqangalka heshiiskan ayaa wuxuu horseedi doonaa in Soomaaliya ay gudaha u soo galaan si xurna ay u degaan una shaqaystaan malaayiin Oromo mar uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia baarlamaanka dalkiisa ayuu sheegay in dhalinyarada Ethiopia ay dhawaan u shaqo tagi doonaan magaalada Muqdisho heshiiskan ayaa la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya sida Ethiopia ay u horgeeyeen una ansixiyeen baarlamaankooda saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in habeenkii Khamiista loo dhacay keedka sanadda ciidamada oo ku yaala wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya isla markaana laga qaatay agabyo badan agabyada laga qaatay keedka sanadda ciidamada ayaa lagu sheegay rasaas qoryo fudud iyo dharka ciidamada waxaana arinta la aaminsan yahay inay ka dambeeyaan xubno sare oo ka tirsan taliska ciidamada ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya dhowr qof oo mid ka mid ah uu yahay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dhawaan uu soo tababaray dalka Turkiga isla markaana ka soo laabtay ayaa la sheegay in jimcihii loo xiray waxaa lagu eedeeyay in raggaasi ay ka dambeeyeen ama ay wax ka ogaayeen falka ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya warbaahinta ayaa ka gaabsatay in ay baahiso magacyada ragga eedeysanayaasha ah oo ay la soo wadaageen saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga raggan la eedeeyay oo ah dhalinyaro tababar fiican ku soo qaatay dalka Turkiga iyo xirada tababarada Turkiga ee magaalada Muqdisho ku taala ayaa qaarkood hore ugu tirsanayeen ciidamada gaarka ee kumaandooska Soomaaliya in marka laga reebo sargaalka lagu tuhunsan yahay ee la qabtay ay baxsadeen ciidamo kale oo la sheegay in lagu shaki qabo arinta dhacday falkan ayaa fadeexad ku noqotay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo ilaa iyo hadda ay ka socdaan baaritaano adag weli ma jiraan wax war oo ka soo baxay taliska wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ku dhawaad 100 qof oo hore ugu tirsanaa al-shabaab isla markaana aan wax badan moogeen kooxdaasi ayaa durbaba saameyn ballaaran ku yeeshay gudaha ciidamada booliiska Soomaaliya sida ay warbaahinta ogaatay raggan ayaa laga howlgeliyay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxayna hoggaan ka yihiin howlgallada ciidamada booliiska sida ay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ay u sheegeen warbaahinta dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa laga howlgeliyay min 5 xubnood oo dhawaan ka soo goostay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana laga mid dhigay ciidamada gaarka ee howlgallada ka sameeya magaalada Muqdisho shaqaaleynta raggan ayaa qayb ka qorshe ay doonayso dowladda in ay ku aqoonsato shabaabka ku jira magaalada Muqdisho ee laga yaabo in ay yaqaanaan xubnahan ayaa shaqadooda waxay tahay in markii howlgal la sameeyo lana soo qabto tabaneeyo qof ay ku daarayaan nalal waaweyn kadibna ay ka soo saarayaan dadka ay yaqaanaan oo ka tirsan al-shabaab ama xiriir la leh si kastaba waxaa jira walaac durbo ka dhashay raggan tabaneeyo qof oo dhalinyaro ah ayaa hadda ku jira xabsiyada gobolka Banaadir waxaana soo baxaya kalsooni darro laga qabo kooxdan oo la aaminsan yahay inaysan tilmaamin shabaabkii saxda ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inuu arkay fashilkii ugu weynaa ee kooxdan isla markaana uu qabo in raggan weli shabaab ay ka tirsan yihiin oo aysan daacad ka ahayn xog bixintooda aniga iyo saraakiil kale ayaa u wadnay howlgal
waxaan geynay xaafadii iyo deegaankii aan ku dhashay oo aan dadkeeda mid u aqaano wiil aan abti u ahay oo wiligiisna al-shabaab noqon ayay igu soo dhex saareen dadka shacabka ah ayuu yiri sargaalkan ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka bilaabatay arrin la yaab leh kadib markii sida la sheegay lagu soo rogay lacagta kulayl lagu sheegay. degmooyinka ayaa ka mid ah Shibis, Shangaani iyo Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa shacabka degan guryaha qaarkood la geeyay warqad lagu weydiisanayo lacagta. dadka degan degmooyinka ayaa sheegay inay u yimaadeen gudoomiye waaxeedka markuu dadka deegaanka sidaas u sheegay ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka wuxuu la soo booday inuusan lacagtaas bixinin ilaa iyo uu ku ogaado halka lagu bixinayo. shir looga hadlayay ammaanka caasimadda Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya, taliyaha ciidamada booliiska, gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo saraakiil kale. waxaa la isku wareystay xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho. waxyaabaha kulankaasi looga hadlayay oo diiradda lagu saarayay waxaa ka mid ah sugidda amniga, isdhexgalka bulshada, darisaynta iyo horumarka caasimadda. waxaana ka soo baxay tallaabooyin kala duwan. go'aanada ka soo baxay kulankii amniga caasimadda looga hadlayay ayaa waxaa ka mid ah in la sii xoojiyo adkaynta ammaanka caasimadda, sidoo kalena waxaa la isla gartay in la kordhiyo howlgallada ciidamada ay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa kula dardaarmay saraakiisha ciidamada in la dardargeliyo sugidda amniga caasimadda xilli mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. taan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.